haddii dowlada shisheeye ay u kala yeeranayaan dadkii muwaadiniinta soomaalida ahaa oo aysan ixtiraaminin madaxweynihii qaranka ilaan waa saan su-aasha hadalka kaaga bilaabee in la kala saaro xasan sheekh mudane xasan sheekh iyo madaxweynaha qaranka xasan sheekh hadda waa madaxweynaha qaranka kursiga ku fadhiyo waa waxa isaga ka xumaada annaga naga wad xumaadeen haddii aan sharafkiisa loo ogolaanin waa sharaf soomaalidu ay lumisay anigu aan lumiyey haddii isaga wax ka halaabaan aniga wax iga halaabeen marka waxaa la rabaa maamul goboleedyada iyo qof kastoo siyaasi ah inuu u arko madaxweynihii qaranka uusan u arag xasan sheekh oo shaksi ah isan u arag iyada meeshaas in lagu dhiso marka qarnimadii meeshaas lagu dhiso oo dee aanan la aadin wadamo shisheeye aan kalsooni laga raadsan wadamo shisheeye maxaan ku rahdaa qof walba oo soomaali ah uu siiyo fursad dowladda hadda jirto inay shaqayso taladana dee waa lala wadaagaa qofkii tala ku darsan karana ku darsado sida hadda annaga aan samaynayno oo kale talaan ku darsanaynaa haddii qofku chance u helo private inuu siiyana hadday xumaadaan uu private siiyo laakiin waxaani waa wada leenahay ama federaalka joog ama gobol joog waa naga wada dhexaysa